tuulada geeda barkaan waxa ay ka mid tahay tuulooyinka sida tooska u hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxa ayna qayb ka tahay tuulooyin saameyn xooggan oo ku yeeshay dagaal beeleedyo sanadihii aynu soo dhaafnay ka dhacay tuulada geeda barkaan oo aan socdaal ku marnay ayaa waxa ay indhuhu ay qabanayeen burburka goobihii bulshadu ay ku noolaan jireen isla markaasina waxa dadka ku dhaqan tuuladu ay bulshada TV u xaqiijiyeen inay doonayaan in laga caawiyo dib u dayactirka iyo aasaaska lagu sameeyo goobaha danta guud shacabka ku dhaqan tuulada ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in haatan ay ka soo qabanayaan dib u dhaca dhaqaalaha iyo burburkii ku yimid hantida iyagoo ay lahaayeen xilli ay la hadlayeen telefishinka bulshada ayaa dhanka kale waxa ay tilmaameen inaysan haysan goobaha caafimaad iyo waliba goobihii waxbarashada ee ay ubadkoodu waxbarashadu aadi lahaayeen tuulada geeda barkaan dagaalka ay gashay dagaal xoog la wahay haddana xoogaa waa sidii waxba ay xoogaa iska bedel ay la sameeyay xoogaa waxay leedahay muuqashaal iyo xoogaa wax walba taakuleen iyo howlo badan ka jira xaaladda oo ka wada amniga oo ka wada dadka tuulada waxay toosan yihiin guriyo hoy la'aan meel galaan male adiga kulli qofkii xoogaa yar wax yar qaantane waxaad la miir waxaas jambi waxaas ay dhistaan waxaan ka codsahaynaa inay tan mid ka fiican loo sii abaabulaan oo dul kor noogu sii dhigaan waxbarashada iyo maamulinta oo ku dadaasha inay wax nala qabtaan oo kor naga ogaadaan haddana waxaan rabnaa baahida dhiman inoo dhammaystiran kow maxaa dhiman waxaanoo dhiman ardaydii waa helnay ilaahayna sii ubadka ardayda waxay u baahayaan macallimiin wax barta macallimiinta waa helnay waxay u baahayaan macallimiinta tasiilaad oomay u baahayaan waxa oo yar oome ardayda walaadintooda uma heli karaa runtii dadkan waa beeraley waa masaakiin mar kasta waa la taakuleeyaa taakuleen waxay u baahan yihiin macallimiintaas inay nolol taakuleeya waxaan rabnaa haddii aan nahay ununka reer geeda barkaan waad naga warqabtiin dad beeraley aan iska nahay tuulada geeda barkaan ayaa haatan u muuqanaysa mid ka soo kabanaysa dagaal beeleedyadii sanadihii aynu soo dhaafnay ka dhacay waxaana dib u soo degay shacabka ku dhaqnaa tuulada oo ka barakacsanaa ku dhowaad muddo sanad ah cabdifataax axmed maclow cabdifataax zaki bulsha TV Jowhar.